English vocabulary. English vocabulary. English vocabulary. af Soomaali erayo cusub. English vocabulary af Soomaali erayo cusub. Worm, worm. Was, wall, white, wealth, worry, wholesome, wondrous, worthwhile, worst, waves, wonder, restore, walk. Erayadan baranayno dhammaan waxay ka bilowdaan ereyga w ama w af Soomaaliga lagu yidhaah. English vocabulary waa ereyo cusub sida caadi ahayd af Soomaaligaasaan ku sharaxaynaa. Worm waa diiranaan ama qandac, biyo diiran, cimilo diiran, wax diirimaada waaye. Worm diiranaan waaye, ama qandac dheh ama diiranaan dheh. Worm diiran, meelaha qaarna qandac baa laga yidhaha. Was, ereygan waxaa ugu dhawaaqi was, ka daran, kaaga daran. Waa shay kolkii waxyaabaha xun la isbarbar dhigayo, isbarbardhig loo sameynayo waa wax xun, xun ka sii xun, waa wax xun ka sii xun camal. Marka kani muxuu noqonayaa was, bad ayuu kasii daran, waa darajada labaad. Kaaga daran ama ka daran ama uga daran asaga ay noqonaysaa. Whole, dhammaantood, whole of the people, whole of the world, adduunka oo dhan. Macnaha waxaad u isticmaali kartaa erayadan inaad adigu jilmad samaysato oo tidhaahid adduunka oo dhan, dadka oo dhan way fiicayn ama way xun yihiin ama waxaas haysta. White waa shayga cadiinka, caddaan, shaqsi maaha, wax kasta oo cad. Maxaa loo isticmaalaa ereyga white? Waa color. Wealth, maalqabeen, wealth waa ninka maalqabeenka ama gabadha maalqabeenka, shaqsiga hantiilaha. Weary, weary, waxaa ugu dhawaaqi weary, weary waxa weeye daalay ama daal. Tired ayay la mid tahay laakiin waa darajada labaad isaguna. I'm tired hadduu ku dhaha qofku waan daalay, tired ama tired, waan daalay, waa kasii daran yahay kani, waa meesha u liidata. Maxaa dhihi? Wearied, daalay. Wholesome, wanaagsan. It is a wholesome situation, xaalad wanaagsan. Wholesome. Wondrous, cajiib, waxbaad la yaabtay, wax kasii daran abaad aragtay. Maxay noqoni? waa darajo labaad iyadana, oo kasii daran, aad ula yaabtay noqoni. Worthwhile, mudan, ku habboon ay noqonaysaa. It is worthwhile, way ku habboon tahay ama way mudan tahay ama wuu mudan yahay. Worst, qashin, qashinka ayaa waxaa la yidhaahdaa worst ama worst. Waves, waves waa hirar, hirar dadka qaarkood inaynan garanaynin laga yaabaa. Hirar waxaa weeye sida biyaha badda oo kale, markay kacayaan waxaad buuro moodid bay sameynayaan. Kaas ayaa waxaa la yidhaahdaa waves. waxaad maqlaysaa hirar siyaasadeed ayaa socda, hirar dhaqaale ayaa socda. Hirarka baddaa naqayna anaku. Marka hadda waxyaabo kalaaba loo isticmaalaa waves. sida waddan kolku kacdoon ka dhaco, dagaallo ka dhacaan oo kale, waxaa lagu leeyahay hirar colaadeed, hirar siyaasadeed ama hirar dhaqaale ayaad maqlaysaa. Wonder waa yaab, wax kaa yaabiyey. Tan waa la yaab caadi ah, laakiin tan waxay noqonaysaa wax kaa kasii durugsan ayay noqonaysaa. Ereygan waa tan laguma dhawaaqayo. Tan maxay noqon? Artaasaa laga soo bilaabi. Restol, lagdan, waa ciyaarada gobollada qaar laga ciyaamo, lagdinta ama lagdanka. Reemiyigana dadka qarniga hore dhaqanka aad loo isticmaali jiray si loo tijaabiyo ninka xooggiisa. Lagdan ama waxaa la dhahaa restol, waxay noqonaysaa lagdan. Walk, eshan dhexda ku jirta waa silent, laguma dhawaaqayo. Wallkii sida dadka qaar maaha, waxaan dhahaynaa walk, socod. Walk,
we are walking together waan isla soconaa. Where are you walking? xagee u socotaa? Wallkii hadhiin tan waa qarinaynaa. Warm qanac waxa weeye qandac ama diiranaan. biyo qabow aad dab saartay waxoogaa waa soo qandaceen ama waa soo diireen. qoraxdaa soo baxday, qabow baa jiray, iftiin waxay noqotay diirimaad. Warm waa diirimaad ama diiran. Was waa shay xaaladiisu aada u sii liidato. waxaa tusaale bad ayaa wuxunaa he's feeling bad, wuxuu dareemayaa xumaan badan ama dhibaato badan. His was wuu ka sii daray ay noqonaysaa. His was than yesterday, wuu ka sii daray siduu shalay ahaa oo kale. qof bukaana aad qofkii la joogay booqatay aad weydiiso tiri hebel ka waran, wuxuu ku yidhi his was then as he was yesterday, wuu ka sii daray sidii uu shalay ahaa, waa ka sii daray ninkaasi. Whole dhammaan, all the global coronavirus affected whole the world. xanuunka coronavirus wuxuu saameeyey adduunka oo dhan, dhammaan adduunyadu saameeyey. White caddaan, the paper is very white or the sun is very white, qoraxdu way caddahay ama xaanshidu way caddahay. Wealth, Ali is a very wealthy man. Ali waa nin maal qabeena. Ali waa nin maal qabeena. Worry waa daal saa'ida. Wholesome wanaagsan. Wondrous cajiiba. Worthwhile mudan. Worsti qashin. Wayfis hirar. Wonder la yaab. Restol lagdan ama socod ayaan dhahaynaa. So waxaan dhahaynaa 2 ama 3 eray ayaan waxaan isku daynaa inaan tusaale ka bixino. inkasta oo aynan aada u iftiimeynin daladeenu. waxaan dhahaynaa warm, waxaan dhahaynaa the water is warm. biyaha way diiran yihiin. biyaha way diiran yihiin. qofaa ku weydiiyey markaasaa tidhi maya biyuhu way diiran yihiin. The water is warm, biyuhu way diiran yihiin. waxaan dhahaynaa qofaa su-aal ku weydiiyey how was the patient? marka intaasaa ku daynaynaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. The water is warm. The water is warm. The water is warm. biyuhu waa qandac ama way diiran yihiin. His was as he was yesterday. COVID-19 has affected whole the world. The paper is very white. Ali is a wealthy man. He cannot walk because he is a very worried. He is very weary. marka soo ereyada intooda badan waxaa u adeegsan kartaa jilmad. markii iyagoo nibaa dhis adeesho waa dhisi kartaa adigu. haddii la yidhaha cali jilmad ka samee waxaad dhihi kartaa cali waa nin wanaagsan. cali waa nin maalqabeena. so muhiimadda luuqadda kolkaad luuqad kasta adduun kolkaad baranayso waxaa muhiima inaad barato ereyga. tusaale waxaad tidhi water biyaa lagu dhahay inaad samaysa adamaaday adigu statement. marka waxaad tidhi the water is warm. biyuhu waa qandac. His was aad ayuu u liitaa as he was yesterday. kolkii loo fiiriyo siduu shalay ahaa aad ayuu maanta kasii liitaa. COVID-19 waa wada garanaynaa. COVID-19 has affected. COVID-19 wuxuu saameeyey whole the world, adduunyada dhan uu saameeyey. The paper warqadu ama xaashidu is very white, aad ayay u caddahay. Ali is a wealthy man.
cali waa nin maalqabeena. He cannot walk because he isagu is a very wearied. wuu daalan yahay, zaaid ayuu u daalan yahay. Marka waxaan u malaynaya haddii la isku dar haddaad barato luuqadan wax badan ay ka anfici haddaa arday tahay iyo haddaad danaynaysaba. Marka dhammaan waxaa ka codsanayaa inaad la wadaagtaan saaxiibadiina kale iyo qofkii aad u maleynaysaan inuu wax ka faa'iidiba. Marka insha Allah aad baan idin salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.